walaac ayaa laga qabaa in Taiwan iyo sidoo kale Shiinaha uu dagaal dhexmaro iyadoo dawladda shacbiga Shiinaha maanta ay soo saartay gantaal la yaab leh oo mucjiso ah kaasi oo loogu talagalay in looga hortago gantaalo dhawaan la siiyay jasiiradda Taiwan oo ay dawladda Mareykanka gacanta u galisay. haddaba ififaalaha gantaalkani uu bixinayo ayaa walaac laga muujinaya waxaana haddii halkaasi uu weerar ka bilowda macnaheedu uu noqon doonaa dagaal kale oo cusub oo ka bilaabanaya meel kale oo ka mid ah caalamka isla markaana qatar ah oo muujinaya ififaalaha dagaalka saddexaad ee adduunka. warbixin ayaan arrintaasi idinkaga hayaa sidoo kale waxaan idiin sheegi doonaa madaxweynaha kumeel gaarka ah ee dalka Syria Ahmed Sharac ayaa ka adkaaday siyaasad ahaan ra'iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu kadib loolan adag oo qayb ka mid ah gudaha waddanka Syria ka socday. maxay tahay qorshaha la yaab kale iyo waliba tallaabada Druusiyiinta ay ugu heeliyeen shacabka Syria ee sida lama filaanka loo arkay. warbixin ayaan sidoo kale arrintaasi idinka sheegi doonaa. sidoo kale waxaynu eegi doonaa weerar midi loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada la haysto oo Haifa lagu magacaabay gudaha dhulka Falastiin. waxaa sidoo kale ka hadlay arrintaasi dhinaca Hamas oo goor dhaweydiyana war ka soo saaray. ugu dambeyntiina waxaan sidoo kale eegi doonaa socdaalka madaxweynaha waddanka Lubnaan Joseph Aoun oo ku tagay gudaha dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo noqonaysa booqashadii ugu horeysay uu dalkaasi ku gaaray. maxay tahay sababta uusan Iran ugu hormarin maadaama dalkaasi waa Lubnaan iyo Iran ay ahaayeen saaxiibo aad isugu dhow. qodobadaasi ayaan ku eegayaa barnaamijka labaad. saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan soo dhawaada. aan ku horeeyay dawladda shacbiga Shiinaha ayaa soo saartay gantaal mucjiso ah kaasi oo loogu talagalay in lagu hubeeyo ciidamada xoreynta shacabka Shiinaha sida ay ku dhawaaqday dhawaan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidamada dalkaasi Shiinaha. gantaalkan ayaa la sheegay in ilaa iyo 418 kilomitir uu gaarayo isagoo adeegsanaya bateriyada korontada loo adeegsaday. waxa uu dhirirkiisa gaarayaa 7 mitir halka ballaciisana uu 2 mitir iyo 40 senti uu gaarayo. waxaa lagu tilmaamay in gantaalkan saacadiiba uu mari karo 10 kilomitir waxaana ay muujinaysaa qatar kale oo weyn oo amni. bishii Oktoobar ayna ka soo gudubnay dawladda Mareykanka ayaa gantaalo casri ah ku wareejisay waddanka ama jasiiradda Taiwan ee Shiinaha dhulkeeda ay u aqoonsan tahay laakiin reer galbeedku ay si weyn ula dhacsan yihiin. arrintan ayaa waxaa lagu tilmaamay fifaalo kale oo dagaal waxaana dawladda Shiinaha barteeda gaarka ee Telegram wasaaradda gaashaandhigga gaar ahaan taliska ciidamadu ay ku sheegeen in gantaalkan uu yahay mid la mahadiyay isla markaana si buuxda loogu wareejin doono ciidamada laguna tababari doono inay adeegsan doonaan dhawaan. Shiinaha waxa uu ka mid yahay dalalka sida weyn ay isku hayaan quwad ahaan iyo dhaqaale ahaanba dalka Mareykanka isla markaana ay aad waayadii ugu dambeysay u loolamayeen. madaxweynaha waddanka Syria ee kumeel gaarka ah Ahmed Sharac ayaa waxa uu siyaasad ahaan ka adkaaday ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu loolan ka taagnaa magaalada Druusiyiintu ay maamulaan oo 3 kilomitir u jirta magaalada caasimadda ah ee Dimashq. kooxda Druusiyiinta ayaa dadaal badan ugu jiray sidii ay magaaladaasi amnigeeda ay u maamuli lahaayeen. Druustu waa koox tirayar oo lagu tiraya aqalliyaadka gudaha waddanka Syria laakiin waayadii ugu dambeysay aad isku hayeen dawladda. hadda Netanyahu ayaa doonayay in uu galaangal ka sameeyo isla markaana uu aad ugu dhawaado siyaasad ahaan. hase yeeshee hadda waxay u muuqataa in laga adkaaday Netanyahu. kooxdan waxay iska diideen wax kasta oo taageero ah oo Netanyahu u sameynayo sida in ciidamadiisu ay halkaasi soo gaaraan in iyaga la hubeeyo iyo in waliba dawladda Ahmed Sharac laga horkeenay intaba. taasina ma dhicin oo durbaba waxa ay sababtay in kooxdaasi ay meel iska saaraan Israel oo xalaba waxa magaaladoodii la wareegay ciidamada dalka Syria. haddii aan wararka bariga dhexe ku sii socdo weerar midi loo adeegsado ilaa iyo 4 qof lagu dilay ayaa ka dhacay magaalada la haysto ee Haifa. weerarkaasi waxaa adeegsaday nin Carab ah oo Falastiini ah laakiin durbaba waxaa soo dhaweeyay kooxda Hamas oo war ay soo saareen ku tilmaamay weerar fiican oo geesinimo leh sida ay hadalka u dhigeen. Haifa waxay ka mid tahay magaalooyinka laga saaray Carabta oo ay hadda Israa'iiliyiinta gacanta ku hayaan waxaana uu noqonayaa weerarkan midida loo adeegsaday mid halistiisa leh oo saameyn weyn ku yeelanaya dadka halkaasi ku nool
sida wargeyska almacaarif lagu magacaabo ee israa'iiliyiintu ay leeyihiin uu goordhow sheegay. haddii aan kusii socdo wararka isla bariga dhexe, kooxda xamaas ayaa waxay tilmaantay in loo baahan yahay Netanyahu in lagu qasbo in wada hadalka uu aado wejiga labaad si loo sii daayo dadka maxaabiista isla markaana halkaas ay u noqdaan kuwa si dhaba xorriyadooda u hela isla markaana dagaalka halkaasi ka jiray lasoo gabagabeeyo. Israa'iil maalintii labaad ayay hortaagan tahay gaaridii gargaarka ahaa ee magaaladaasi go'doonsan inay galaan, waxaana arrintan ay saameyn ku yeelatay malaayiin dada oo ku nool magaaladaasi qasa oo dhibaatooyinka xoogga leh ay ka taagnaayeen maalmihii ugu dambeeyay. ugu dambeyntiina madaxweynaha waddanka Lubnaan Joseph Aoun ayaa waxa uu gaaray magaalada Riyadh ee xarunta dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya, halkaas uu ku soo dhaweeyay boqor Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha waddankaasi. booqashadiisa ayaa waxay tahay mid isu soo dhaweynaysa labada dal sida war-saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada Beirut lagu tilmaamay. booqashadiisan waxay sidoo kale calaamad su'aal dul saaraysaa xiriirka u dhaxeeya Iiraan iyo sidoo kale dowladda Lubnaan, iyadoo Beirut wixii ka dambeeyay Aoun markii uu talada yimid labada dhinac ay si kala fogaadeen, waa Tahraan iyo Beirut. hadda xaaladda gobolka ayaa u muuqata in ay aad u sii kala fogaanayso, waxaana ay muujinaysaa Sacuudi Arabiya inay qaadanayso kaalin wax ku oola oo muujinaysa dadaalada xoogga leh ee dowladda Sacuudiga ay ku soo dumanaysa wadamada Carbeed. Beirut haddii ay ka baxdo gacanta dalka Iiraan waxay u dhigan tahay caasimadii labaad oo Iiraan oo Carbeed oo ay si dadban u maamulayso oo gacanta ka baxay kaliya waxaa ku soo haraya magaalada Sanca iyo sidoo kale magaalada Baghdad ee waddanka Ciraaq. saaxiibayaal, qaybtii labaad ee caawa ee barnaamijka Barrow Showna intaa inoo joogo. nabadgelyo. ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka. dhakhtarka oo daboolay baahiyaha caafimaad ee loo aadi jiray wadamada dibadda waxa uu filin doonaa dhammaan qaliinka guud iyo kuwa casriga ah ee laserka. maalin waliba waxa uu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar. ama wixii faafahinta dheeri kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya. ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka. dhakhtarka oo daboolay baahiyaha caafimaad ee loo aadi jiray wadamada dibadda waxa uu filin doonaa dhammaan qaliinka guud iyo kuwa casriga ah ee laserka. maalin waliba waxa uu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar. ama wixii faafahinta dheeri kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqanaya.